بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka waxaa loogu bishaareynayaa inuu soo baxay calendar ku qoran afka Soomaaliga run ahaantiina oo ah arrin aan muddo dheer sugaynay calendarka wejigiisa hore wuxuu noqon doonaa sida idiin muuqato waxaa ku qoran afkaaga waa dhaqankaada your language interprets your culture halkana waxaa ku qoran wiil yaroo geel jiro gaajadu karayn waa waxa dhulkeena u gaar ah ee nagula gartaa calendarkan bilaha iyo maalmaha dhan waxay ku qoran yihiin af Soomaaliga sidaa daraaddeed dhammaan waxaan ku dhiirigelinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaanbo inay adeegsadaan calendarkan isaga ah bishan waa bisha koobaad waxaa la yidhaahaa wajini ereygan wajini oo bisha koobaad waxaa laga soo qaatay waxaa jirta xilli yar oo qaboobo yar oo soo dhaco oo ka dhaco gobollada dhexe gaar ahaan gobolka Mudug iyo Nugaal xilligaas ayaa waxaa loo yaqaanaa wajini waana bisha koobaad wajiga bisha koosaas ayuu noqonayaa waxaa ku xigo bisha labaad waa Xays 2016 waa bisha labaad bil kastaba waxay wadataa sawir hidaha iyo dhaqanka ah waxaa ku xigo bisha saddexaad oo hadda aan ku jirno oo ah Todob 2016 waa bisha saddexaad waxaa ku xigo bisha afraad oo ah Seermaweydo waa bisha afraad saa u jeedaan waa kaas waa bisha afraad sawirka ah Seermaweydo waxaa ku xigo bisha shanaad oo ah Candaqoys waa bisha shanaad waa Candaqoys sawirkan wuxuu noqonayaa sidaas u jeedaan waa bisha shanaad waxaa ku xigo bisha lixaad oo ah Guyare waa bisha lixaad sawirkeeda iyadana sidaas ayuu noqonayaa waxaa ku xiga bisha toddobaad oo ah Xagaacade waa bisha toddobaad Xagaacade sawirkana sidaas ayuu noqonayaa waa Xagaacade bisha toddobaad waxaa ku xiga bisha sideedaad oo ah Xagaamadoobe sida idiin muuqato waa bisha sideedaad Xagaamadoobe waa bisha sagaalaad oo ah Karanweyne waa bisha sagaalaad oo ah Karanweyne waxaa ku xigo bisha tobanaad oo ah Karinyare waa bisha tobanaad waana kaa waa Karinyare waxaa ku xiga bisha 11aad oo ah Dambasamo waa bisha 11aad iyo bisha 12aad oo ugu dambeysay oo ah Dalaalo waa bisha 12aad 2016 waa sawirkan waa sidaas maalmaha af Soomaaliga waa maalinta sabdiga la yiraahdo af Carabiga ah waa soo roge axadda waa koobin isniintu waa lamin talaado waa lamatoog arbacada waa koodaar khamiistu waa hakise jimcahana waa hakise bile run ahaantii waa farxad iyo reereyn inaan adeegsanana way nagu habboon tahay calendarka af Soomaaliga ee ku qoran bila iyo maalmaha af Soomaaliga run ahaantiina waa loo baahan yahay in aan ka maarano adeegsiga bilaha shisheeye sida January iyo February iyo March ama maalmaha af Carabiga ah ee duuga calendarka Soomaalida waa kana kan waa mid ku cusub hadda daabacay oo insha Allah la adeegsan doono bisha waa Todob waxaa ku xiga maanta waa maalintii Hakisabile 11 bisha Todob waxaa ku xigo bisha Seermaweydo waa tana waxaa ku xigo Candaqoys oo ah bisha May waxaa ku xigo Guyare oo ah bisha June waxaa ku xigo Xagaacade oo ah bisha July calendar waliba marka maalin bil kasta waxay wadataa sawir u gaar ah oo kor ku yaallo waxaa ku xigo bisha Xagaamadoobe oo ah bisha August
waxaa ku xigo allah mustacaan karin weyn oo ah bisha September sawirku wato waa sawirkaas waxaa ku xigo karin yar oo ah bisha October dan waxaan u imaanaynaa waxa waaye waa dalaal dambasame oo ah bisha November iyo bishii ugu dambeysay oo ah dalaalo sawirku watana waa sawirkaas. Assalaamu calaykum.